mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14 Abriil iyo 15 May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka. waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 Juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka. golaha xukuumadda Puntland wuxuu 22 May 2026 soo saaray in Xasan Sheekh Maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed oo xafiiska ku sii joogo. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo isugu jira dawladda Puntland, dawladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyay sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay'adaha dawladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda. nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. dawladda Puntland waxay kaloo soo bilaabo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka. Puntland ayaa ka hor timid qorshayaal oo Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dawlad dhiska Soomaaliyeed. dawladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyo diiday afduubka siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyay taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka asagoo sheegtay inuu bedelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland, guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland, guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada Puntland, xubnaha golaha wasiirada, xubnaha golaha wakiilada, xubnaha golayaasha dawladda, golaha garsoorka, golaha wasiirada, saraakiisha ciidanka, shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee golaha wakiilada, dhammaan marti sharafta halka joogta, mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idin hor imaado si aan idinka warbixiyo xaaladda guud ee Puntland, guulaha la gaaray muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi bishii December 2025 iyo bishii shanaad May 2026. sidoo kale aan in la wadaago meesha ay marayso xaaladda amni siyaasadeed ee guud ahaan Soomaaliya. waxaa hortiina yaalla buugyare lagu soo koobay waxqabadkii ugu waaweynaa ee xukuumadda u qabsoomay muddadii 6 bilood ee u dambeysay iyo buug warbixinta waxqabadka golayaasha dawladda ee sanadkii 2025 kuwaasoo aad ka dheehan doontaan kororka waxqabadyada la xiriira adeeg bixinta dawladda ee kala duwan sida adeegyada arrimaha amniga iyo ku dhaqanka sharciga, arrimaha bulshada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, tayeynta awoodaha hay-adaha dawladda iyo kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga, daahfurnaanta iyo ixtiraamka ka dhexeeya hay-adaha iyo golayaasha kala duwan ee dawladda. mudana guddoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin guud ahaan amniga deegaanada Puntland ayaa ah mid xasiloon, mana jiro dagaallo ama isku dhacyo amni oo hadda ka jira gudaha deegaanada dawladda Puntland.
dhammaystirka howlgalka calmiskaad iyo ciidamada Puntland kula jireen cadowga argagixisada Daacish ayaa weli socda buuraleyda calmiskaad sida la socotaan ciidamadeena geesiyaasha ah oo kaashanaya taageerada cirka iyo saaxiibada caalamka waxay ku guuleysteen inay burburiyaan awoodda ciidanka iyo qalabka ee argagixisada waxa kale oo meesha ka baxay culayskii amni iyo dhaqaale ee ay ku hayeen bulshada reer Puntland gaar ahaan ganacsatada taasoo keentay in ganacsigii horay cabsi aaweed uga tagay ganacsadii horay uga tagtay cabsi aaweed dalka dib ugu soo noqdaan goobihii ganacsiga isla markaana ay abuureen maalgashiyo ganacsi oo hor leh horumarka ganacsi bulsho iyo amni ee guud ahaan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa aad isu bedelay tusaale noolna ah waxaa sida ay shacabka Puntland ugu soo baxeen muujinaya ciyaarihii caasimadaha gobollada Puntland ee koobkii calmiskaad ee lagu qabtay magaalada Boosaaso dadka reer Puntland waxay muujiyeen heerka xadaaradda iyo midnimada iyo guud ahaan bulshada Puntland gaar ahaan dhalinyarada ay leeyihiin taasoo qayb ahaan ka dhalatay guulihii dagaalka calmiskaad sadar muuqda su'aal ka dhan mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dowladda Puntland iyadoo ka hortagaysa in aan argagixisada dib u soo abaabulin waxay deegaano ka tirsan calmiskaad saldhigyo uga samaysay laba guuto oo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo si joogto ah uga howlgali doona deegaanadaas sidoo kale dowladda Puntland waxa uu u degsan qorshe howlgal onkod oo looga safeynayo kooxda argagixisada al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin buuraha calmadow ee gobolka Sanaag amnigu waa saldhigga horumarka sidaa darteed dowladda Puntland waxay joogtaysay tayeynta ciidanka amniga iyada oo tababaro qalabayn iyo dayactiri kaabayaasha amniga u samaysay ciidamada booliiska hay'adda nabad sugidda ciidanka daraawiishta ciidanka ilaalada xeebaha iyo asluubta intii u dhaxaysay labada kal fadhi waxaa tababaro loo soo xiray 3 dufcadood oo booliis ah sidoo kale waxaa tababar xirfadooda kor loogu qaaday la siiyay ciidamada asluubta waxaa hadda xerooyinka tababarka ciidamada qalabka sida ee General Gasafeynayo kooxda argagixisada al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin buuraha calmadow ee gobolka Sanaag amnigu waa saldhigga horumarka sidaa darteed dowladda Puntland waxay joogtaysay tayeynta ciidanka amniga iyada oo tababaro qalabayn iyo dayactiri kaabayaasha amniga u samaysay ciidamada booliiska hay'adda nabad sugidda ciidanka daraawiishta ciidanka ilaalada xeebaha iyo asluubta intii u dhaxaysay labada kal fadhi waxaa tababaro loo soo xiray 3 dufcadood oo booliis ah sidoo kale waxaa tababar xirfadooda kor loogu qaaday la siiyay ciidamada asluubta waxaa hadda xerooyinka tababarka ciidamada qalabka sida ee General Green iyo Xorgable ku jira qaybo ka mid ah ciidamadii ka soo degay buuraha calmiskaad si kor loogu qaado loona casriyeeyo aqoontooda ciidannimo dowladda Puntland waxaa sharaf u ah in saaxiibada caalamku u aqoonsadeen ciidanka difaaca Puntland inay yihiin ciidamo geesiyaal ah oo leh wadaniyad ayna ka go'an tahay difaaca dalkooda iyo dadkooda waana midda keentay in ay iskaashi amni la yeeshaan dowladda Puntland si Soomaaliya iyo Geeska Afrika looga sifeeyo dhammaan kooxaha argagixisada mudana guddoomiye iyo mudanayaal iyada oo laga duulayo hirgelinta qorshaha casriyeynta amniga ee aan kalfadhigii hore ku dhawaaqnay waxaa dowladdu hirgelisay qorshayaal casri ah oo hay'adaha amniga Puntland gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda u sahlay dabagalka iyo qabashada dambiilayaasha taasoo keentay inay hoos u dhaceen dambiyadii abaabulnaa iyo dambiilayaashii khatarta ku ahaa amniga dadweynaha magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Boosaaso Garowe iyo Gaalkacyo waxaa howlgallo ciidamo booliis ah oo leh xirfad iyo aqoon amni oo sarreysa kuna qalabaysan gaadiid iyo agab kale oo u sahlaya in ay fuliyaan waajibaadkooda dastuuriga ah
muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi hay-adaha dowladda ayaa dadaal ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafka u dhaxeeya qaar ka mida beelaha puntland gaar ahaan gobolka sanaag iyo mudug waxaa jira khilaafaad weli ka dhex jira beelaha qaarkood ayna socoto sidii xal waara looga gaari lahaa waxaana ka tacsiyeynaynaa dadka shacabka ah ee khasaarahaas dhimashada iyo dhaawaca leh uu soo gaaray mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin in kastoo ay ina soo wajahday culaysyo dhaqaale oo ka dhashay dagaalka iiraan kaas oo saameeyey dhammaan dhaqaalaha dunida balse hay-adaha dakhliga dowladda puntland ayaa dadaal badan oo joogto ah ku bixiyey sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga si loo daboolo kharashaadka ay waajibisay miisaaniyadda sannadlaha ah loona hubiyo bixinta adeegyada joogtada ah ka hor inta uusan bilaaban dagaalka iiraan waxaa kordhayey dakhliga dowladda puntland tusaale ahaan bishii oktoobar ilaa diseembar wuxuu dakhligu kor u kacay boqolkiiba 8 balse bilihii uu dagaalku socday waxaa muuqata hoos u dhac dhinaca dakhliga ah iyadoo ay jiraan culaysyada uu keenay dagaalka iiraan haddaba dowladdu marna ma joojin shaqooyinkii hortabinta u leh horumarinta dhaqaalaha waxaana si habsame leh u socda dhismaha waddooyinka gaar ahaan bacaadweyn gaalkacyo ceeldaahir ceergaabo iyadoo laga duulayo qorshaha horumarinta ganacsiga dowladda puntland waxay fududaysay isku socodka gaadiidka xamuulka ah ee isaga gudba puntland iyo etoobiya taas ayaa waxay qayb ka tahay inuu aad u kordho dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo in badeecadaha ka soo dega dekedaha boosaaso iyo garacad ay toos ugu gudbaan gudaha gobollada kala duwan ee etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa heer gebagaba ah maraya dhismaha sanduuqa horumarinta puntland sanduuqan ayaa ah sidii aan horeyba u sheegnay wuxuu midayn doonaa qorshayaasha horumarinta puntland wuxuuna kaloo sare u qaadayaa isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadeed ee barnaamijyada horumarineed dowladda puntland waxay sidoo kale gacanta ku haysaa qorshe lagu aasaasayo bangiga horumarinta puntland oo noqon doono mid ay isku xidhan yihiin sanduuqa horumarinta sidoo kalena fududayn doona fursado shaqo abuur iyo in kor loo qaado fursadaha maalgashiga iyo ee khayraadka puntland waxaa ceegaaga khayraad dabiici ah oo kala duwan sida macdanta shidaalka kalluunka xoolaha nool beeraha beeyada dowladda puntland waxaa ka go'an in si dhaqso ah loo horgeliyo qorshayaal looga faa'iideynaya khayraadka alle ku manaystay dhulkeeda dowladda puntland weli kama quusan ka mid ahaanshaha dowlad midnimo soomaaliyeed oo federaal ah laakiin inta laga helayo dhismo dowlad heshiis lagu yahay sida uu qabo qodobka 4 iyo qodobka 54 ee dastuurka puntland iyo qodobka 44 iyo qodobka 142 ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliyeed puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax bannaan uga faa'iidaysato khayraadkeeda ayna geli karto heshiisyo caalami ah haddaba puntland waxay soo dhoweynaysaa cid kasta oo rabta inay maal gashato khayraadka ku jira dhulkeeda haddii ay tahay ganacsato soomaaliyeed kuwo ajnabi ah iyo dowladaha danaynaya inay puntland maal gashtaan mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka soomaaliya iyadoo 14 abriil iyo 15 mey ee sannadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka golaha xukuumadda puntland wuxuu 22 mey 2026 soo saaray in xasan sheekh maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed uu xafiiska ku sii joogo golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo isugu jira dowladda puntland dowladda jubbaland iyo madasha samata bixinta soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyey sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa
qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay-adaha dowladda federaalka kuna qabsooma wakhtigeeda. nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud. dowladda puntland waxay kaloo soo bilaabo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka. puntland ayaa ka hor timid qorshayaal uu xasan sheekh maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hanaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyey, taas oo keentay inuu meesha ka saaro hanaankii labada heer ee federaalka dalka, asagoo sheegtay inuu beddelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012, isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hanaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin, madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday xasan sheekh maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uga gaaro dana gaaban iyo masaalix wakhtigeedu soo bixi doonto, wuxuu si bareer ah ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Puntland oo ay og tihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay. wuxuu horay duulaan hubaysan ku qaaday magaalada Raaskambooni ee dowladda Jubbaland, asagoo halkaa ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya. wuxuu sidoo kale afgembi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyey magaalada Baydhabo, asagoo xoog ku muquuniyey meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambayntii ka jirtay. wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho. sida aad la socotaan, madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayey kacdoonkii shacabka ee magaalada Laascaanood ka dhacay bishii December 2022 ilaa Agost 2023, asagoo markii dambena isku dayey in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool. hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud. sidoo kale xasan sheekh ayaa isku dayey inuu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ay muddada dheer kula jirtay cadowga argagixisada Daacish, asagoo ishortaagay ku sameeyey taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid ah saaxiibada caalamka. wuxuu kaloo calqaradayn joogto ah ku sameeyey diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayay dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayay, iyada oo si joogto ah loogu diidayay in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya. dowladda iyo shacabka Puntland oo fahamsan dhagaraha xasan sheekh maxamuud ayaa isha ku haya fargelinta joogtada ah ee uu ku doonayo inuu ku carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida ka jira deegaanada Puntland. dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhallinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun, Bayla, Eyl iyo Jariiban ee Puntland. dhallinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas. dowladda Puntland marna ma aqbalayso qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hanaanka dowlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah uuna saldhig u yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee 2012. waxayse diyaar u tahay inay qayb ka qaadato sidii lagu gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho heshiis lagu yahay hay-adaha federaalka ah. dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 48aad ee dastuurka ku meel gaarka ah waxay aaminsan tahay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay si xor ah ugu dhaqmaan dastuurkooda. madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ka daayo fargelinta iyo jajuubka siyaasadeed ee ku hayo. dowladda Puntland
waxay si adag uga digaysaa wixii faragelin amni ah ee madaxweynuhu hore ka dhex wado meelo ka mid ah deegaanada Puntland